waxaan rabaa inaan waaqica faraha ku taago nimanka aan ishayno xukunay nagu fuliyeen ay ku sheegeen diinta islaamka inay tahay geedahaasay ku gubeen guryahaasay ku gubeen masaajiday ku dumiyeen haddii waxaad sharciga islaamka ay ku bannaan yihiin cid kastoo daliil u hayda waxaan rabnaa inay ka hadasho cid kastoo daliil u hayda in waxaas diin islaam tahay ridaa halkaas taaloo duqdaa 5 xabadood ay ku dhifteen dameerna waa ku dhifteen barkadna waa gubeen waxa annaga aan ka dagaalamayno aan diidanahay diintana loogu sheegay waa waxaas waxaan u dagaalamaynana waa inaan diidno wixii ilaahay yiri diida waxa aan doonaynana waa waxa oo amarka aan qaadaynana waa kii rabbi cid aan rajayhayno inay naga saarto dhibta waa alle dawladda waxaan ka rabnaa fursadii ay dawladahan lahayd annaga laakiin diin ahaan aan u dagaalamaynaa marna rabna in hubka iska dhigno qiyaamo soo ku xiran yahay qoriga aan sidana ayaga kuwa soo xiray waxaana lagu xukumay dhammaan in la dilo waxaana lagu xukumay dhammaan in la dhaco waxaana lagu xukumay dhammaan in la gubo dhulka in geeduhu wax baasheen iyo in kala dadka aqoonta leh jawaabta waxaan u deeyahay bini aadamka laakiin waxaan tusayaa taswiirka yaala geedihiya guban barkadihiya guban dameerihiya dilan arigiya dilan dadkii ama xabiisan inta kalena waa la daba jooga haddii waxaas kutub ay ku yaaliin oo ilaahay leeyahay jiro madaxan saarayna ma diidayna wixii ilaahay leeyahay haddii wixii ilaahay diidayihiin waxaan ku diidnay wixii ilaahay ku diidi mayno dooqanaga wax kuna dooni mayno rabitaankanaga wax ilaahay naga rabaa inaan fulino sidaas go'aan naga dhulkiya dumay waxa laga soo bilaabay masaajidka cali kibir waxa la yiraahdaa ma dhisi karan kan baxdana rasaasaba lagu dumay haddii diinta islaamku masaajidda dumido garabka nuridayna oo la yiraahdo war diinta qabtay hadiidinina haddii laakiin ilaahay diiday diintiisana uu ku diiday nabi la soo amray oo soo jirin wixii rumeeyay inuu dilo dadka xataa la laayo la dhacay waxay ahaayeen dad yiri waxa tiraahdiina inka yeelinaha noo sheeg markay ka aqbaleenay waxay xukunkii wuxuu soo saaray dhammaan in la dilo ayaga war mashkiladan aragnay caalamka aan waxay maskaxdooda aadi kartaa la arag mashkilad aqliga suurtagalkana uu diidan yahay islaamkuna uu meel cad ka abaaray taasana anagu bari ka qaadanay inaan u dhimanaan rabnaa darteed